taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutooda waa Yuusuf Raage ayaa qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ku booqday shacabkii ku dhaawacmay qaraxii dhawaanaha lala eegtay taliyaha ciidanka xoogga dalka. sareeyo guutooda waa Yuusuf Raage oo ay weheliyaan saraakiisha hoggaanka caafimaadka, hoggaanka saadka iyo kan maamulka lacagta ayaa booqasho iyo ka warqab ugu tagay shacabkii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dhibaateeyeen qaraxiis miidaaminta ee kooxda Al-Shabaab ay kula beegsadeen taliyaha ciidanka xoogga dalka agagaarka garoonkii hore ee kooxda Horseed. ciidanka xoogga dalka oo u dhaxeeya isbitaalka xoogga dalka iyo barxadda Tarabuunka. taliyada ayaa waxa uu booqday isbitaalada Madiina iyo Soomaali Suudaanees oo lagu dabiibayo shacabka dhagarqabayaasha Al-Shabaab ay ku waxyeelayeen qaraxii ka dhacay Tarabuunka, isagoona mid u xog wareystay isla markaana Ilaahay uga bariyay in uu caafimaad degdeg ah u siiyo. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerar fashilmay waxay 13 bishani ku qaadeen kolonyo uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutooda waa Yuusuf Raage. qaraxaas oo ay fashiliyeen ilaalada taliyaha ciidanka xoogga dalka. Maxamed Cali Sabriye, warbaahinta codka ciidamada magaalada Muqdisho.